بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمتي وعنا ونكسن داوديال كسو دوادا برنامج كيني سويالك علمدا وبرنامج تضبط له على بنت كداوتان استان هداية وعن كسو جرني سويالكي شاوكر معلن ربنا حريص جناح كورابية وحن سسو قارني قيبتي سدحات تضبط كانوا حمرتي إجواه شعل وجيس أو كمدا علماء الدين كصوماليات إسلام كان شيخ أبو بكر إن بدن سويالكيس wax badan kala socday ugu horeen shacali ku soo dhawow barnaamijka sooyaalka culimada shacali dabcan waxaan ku jirnay sooyaalkii shaawukar macalin rabbina xariis janah ka waraabiye intaana sooyaalka iyo shacmar u galin soo aragtaa barnaamijkan aynu kaga hadlayno sooyaalka culimada oo aynu ku aruurinayno taariikhda culimada بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وما سنتين استان تي في والله هذه علماء وعنصر كأما قيبت أمهم في المجتمع سوته حواي ودحلك النبي صلى الله عليه وسلم أي كفديان نبي نحور صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء علماء وضدك دحلي أنبياء مركا أنبياءنا رسالة إلهي أسول لي بواحد كون كان إلهي كل نوري وسعادة الدنيا مدة آخر أي كل دور يجيس رسالة أي حمبارس سيد رادة سنة تي في وكما سنتين من dadkaas taariikh nololeedkoodii iyo juhuudoodii iyo dadaalkoodii ummadda la baro iyo shakhsiyaadkoodii waa qayb weyn oo ka mid ah in loo khidmeeyo islaamka iyo diinta oo dadkana waxay siinaysaa inay culimmadoodii ay ka warqabaan dadka culimmada cumrigooda waxaa loogu talagalay waa kooban yahay laakiin ilaa yowm alqiyaama in baaqi noqdaan juhuudooda iyo cilmigooda iyo juhdigooda iyo dadaalkooda imaam shaafici raxmatullaahi caleyh 1300 sano noo dhexaysa annaga وأن قلبي كانوا كنول هاي كتب علمي سان لنور هاي ودعينا النبي مال علماء الإسلام كلنا أساس واي مركا كوا الصومالية ذو هذا الجوجا يكون انتنا وحرب أساس وكلا إنه تاريخية مركا برنامج فريدة أو مركا أوجا رئيسي أنا أركن إن تي في ستان تي في أي كوبولي ستة وأنا شلوني هذه شعلي طبعا وحن كان لنا سؤال كي شاوكر معلن ومحوها كم ذا علماء الدين الصوماليات balki iyo rashacali marka laga hadlayo Abuukar Macalin goorma ahayd markii ku horeysay aad Abuukar Macalin aad magaciisa maqashid ama aad aragtidiisii ama inaad ka taqaanay Sheekh Abuukar Macalin Ali rahmatullahi alayhi wuxuu kamid ahaa culimada Soomaaliyeed ugu waaweyn oo runtii dadaal aad u fara badan sameeyay haddii aan su'aasha jawaabteeda toos u galo goorma ugu horeysay isbarateen Sheekh ani waxaan isbaranay anoo dhalinyaro ah dugsi dhexe dhigta toddobaatankii iyo toddobadii iyo sideedii iyo xilliyadii u dhadhawaa ilaa sideetameeyadii asaga oo masjidkiisa oo cusub oo markaas agteeda la dhisay cilmiga ku akhriya kutubta fiqiga ku akhriya kutubta luqada ku akhriya khudbada ka akhriya masaajidkiisu masaajidda ugu shidan Boondheere iyo Shibis iyo Yaaqshid iyo ilaa maaragtay Dhigley looga xiran yahay oo kutubta lagu akhriyo oo tajwiidka laga akhriyo oo la dhihi jiray Sheekh Xuseen ayaa tajwiidka akhri jiray xilligaas ayaa igu horeysa anoo dhalinyaro ah dadka meesha yimaado oo wax ka faa'iideysta inkastoonan xalaqaadka si waagaas dhalinyaro iska ahayo iskoolna waa igu xiriiray hodanna waa deganaayo meel fogan ka imaanay siigaala eeriisan aan joogay masaajidka xaji abgaalow macaan xasan gacal hiraabe oo qaraabana ay ahaayeen sheekh ay macallinkayga ahaa oo markaa wax badan iyo liqaa'aad badan iyo ijtimaacaad badan baa isku arkaynay marka waagaas ayaa igu horeysay ilaa وكل مناينا واسكرنين هذه رحمة الله عليه هذه الشعر طبعا شابوكر مدام علماء الدين الصوماليات أولي بنادرية وكمدها يعني دعوينك أتكو حسوسات هو وينا شابوكر من المحاكم دي والله هرت الشيخ بوكر وحيابها وكعانة هاي وعلماء حتى كلا ودونا أفر الموت وشيخ عن وكوهي واجرت هذه ورنتي علماء بدن وأسأل العلمي أما قاركوت كعلم بديهين بس عشان عندك الحكاية وعالم الصومال وعالم بنادر الهجري كتبته أنت بدن علمي لقى وضع أخرستي يوجرن قار أسأل لماذا يقار مارتي سونا عالم بوها فعلا سلا سكرته وكم دقنين لكن وحيابه الخاصة يواجرت علمي يا فافنتي سر علماء وكود السميين
لكن ما هي الخصال التي تميز بها؟ يعني سؤال محول قار هاي أدي محول قار هاي وحاكم من الشيخ وحوها من قناع صدقها أو مال القبانة أو السجو شقيستوها علماء لابا سجد ديس علم جيس مكان ديس له عيوب بديهن إن يسن هولا إن يسن علمك عليه وتفرقان أو يسن الدنيا كشقيسن لكن السجو وقد وانا وحوها من كشقيسته الدنيا ديسة وأنقف كل كتير سنين مساجد العتيس وكل شيء دوادع كرتحرتيس دكتور إنك الغرب قلنا لكن السجع هي أساسه هاي قارانك وحيابها إسلام كالغب حيان الجيب كيس وكم حناي حرت السجع يا جيب كيس كجلاي مركب هرتكو من دكتور بعدين شقيستاي ونكو أمانة رنتي وأنا مدرسي مقع وين مكانوي لبا وحوها nin aan cilmiga akhriskiisa kale ku sameeyay oday Soomaaliyeed iyo oday dhaqameed oo qabiilkiisa iyo reerka uu ka dhashay ama reer Mantan Cabdulhaadaan ama Soomaalida kale oo abdaal iyo dadka uu ka dhashay banaadir degan haadaano dabcan qabailka in la sheego cimilo islaamka ay noo sheego wala taarifu wuxuuha dadka ay ku tiirsan yihiin oo mashaakilkooda xalliya haday mid dhaqaalata iyo haday mid tala ay tahayba aadna looga dambeeyo ayuu ahaa ixtiraam badan ku leh هذا خسرة البعض خسرة الاستحاد وحكلوها ما دام وسن قف وباهنين إلهي كلي وباهن هاي وحي سوته لنحقق كو أدق وجريئة وعن لقبا دعوة أنا كان جوجو هاي جعلها تاسين مثالكم بحير وحاجة لمدحوين علي مهدي محمد الله نحرس طبعا تود به أيها الذكور شركولار صوص سعر كويس سجاش مدحوين النقدي ما دام نقوليها دتك اللي سكت الجناي أو بالأقل دت الجناي أو dadka iyagoo nool magaalada jooga gurigooda xog lagu dagaayo jabad USC dhaqan xun badan ay sameeysay madaxweynuhuna nin nabad jecelayo ah runtii oo culimada iyo wanaaga iyo aad uga agdhow wuxuu soo saaray asagoo la tashaday warqadiisa soo qaabeeyeen niman abukaatayaal loo naxariisto labada waa dhinteen abukaata Gabyo iyo abukaata Jabax la jira Abdulqaadir Jabax iyo abukaata Gabyo Maxamed Gabyo ayaa waxay soo saareen shirkulaar ama wareegti madaxweyne oo uga hadlaya arrimahaas waa in guryaha laga baxaa waa in dadka guryahooda cidii oo maartay guryaha xoog ku haysata ama hadii boolisku ay u tagaano ay maxkamadu soo xukumaan in laga saaro diida ee ku dagaalantana waa in awood looga saaraa sida qodobada wuxuu daliishada marka kulli wareegtada qodobada xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ku cadcad oo qaanuun ahaan la yaqaan culimada Soomaaliyeedna hada waxay jeceshahay wax walba in marjic looga dhigto diinta Islaamka qodobada uu ka hadlay madaxweynuhu soo saaray waa saxan yihiin laakiin daliilka la daliishaday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed khalada waa in la daliishado aayatul maa'ida wa aayatul baqara ilaahay shariicu soo dejiyay shariicada way ku caddaayba arrimaha madaxweynuhu dadka ugu maartay oo ka reebay shariicada baa reebtayba marka wuxuu baanta marka warqadiisa in si sharci loo soo saaro oo culimadu ay door ku yeeshaan waana meesha siyaasiyiinta Soomaalida ilaa xog halaysan yihiin laano ma qabaan la taliyaal sharciyiin oo wareegtooyinkooda iyo maarta qodobada iyo qawaaniinta ka soo baxaysa iyo kulli shariicada soo waafajiya ama shariicada ka hooyay inay waafaqsan tahay nolosha dawladnimadana dadku waxa waajib ah wax kasta xeer ka dhiganayaan in shariicada la hubiyo in iska dhimaanay marka la hubiyo kabacdi waa la soo saari karaa marka markuu soo saaray culimadii ducaada magaalada marka kacday warqadiga la helay masaajidda khudbooyin laga jeediyay waxa la yiri arintaas madaxweyne calimada ku khaldan yahay marka qaar hataa siyaasiyiin ka soo horjeeda waxay isku dayeen inay hataa mudaaharaad liddi ku ah ay arintu uga faa'iideystaan khaladaadka madaxda waa laga faa'iideystaa mogta darafka oo mucaaradka ka faa'iideysanayo propaganda badana ay idaacadaha ka baxay waagaas joornaalo iyo waxa iska jiray idaacado iska yar marka culimada majmaca oo Sheekh Maxamed Macalin hogaaminayo Allah yarxamuhu ayuu marka la soo xiriiray madaxweynaha waa u yeeray culimadii waaweyn oo dhama gurigiisa u yeeray command balusi gurigiisa deganaa raxmatullaahi alayhi alimadi waxa aan fadhigaas waa ka soo qayb galay Sheekh Maxamed Macalin iyo Shariif Sharafow iyo Sheekh Ibrahim Suulay iyo Sheekh Abu Bakr Macalin iyo Sheekh Shariif Sheekh Muxdiin Ali Allah yarxamuhum jamiican culimadaas waa wada dhinteen anaguna dawada wakici doona iyo Sheekh Abu Bakr Macalin oo sheegay iyo Sheekh Ali Dheer hadda nool waxaan u maleynayaa Sheekh Dhicisoona asaguna dhintoon hal soo joogay iyo Sheekh Yusuf Al-Aynti asaguna nool waxa ka nool hadda intaan sheegay culimadaas Sheekh Ali Dheer iyo Sheekh Yusuf Al-Aynti iyo aniga oo maanta adduunyo joogna anaguna waa raaci doona laakiin culimada ajillada ayadoo dhan waa aakhirey jiraan marka culimadaas oo dhan isu timid madaxweynuhu isaga u yeeray labadii abukaatana waa soo fariisay abukaat Gabyo oo Jabax oo markaas wasiirka cadaaladda oo Jabax Gabyo la taliyaha xagga arrimaha qaanunka madaxweynuhu markay soo fadhiisteen
أي علماء هذا الشيء محمد معلم وركب بالله طبعا وحكى هذا الشريعة إنه واجب تاني نقول رقمه وحكى ستوك سوري جدا عباد اللي شغلان سوريا كل حكسة الشيخ شريف كل حكسة شوكر مع النور كقات شوكر مركز تاريخ ولا مالتي والله يابا هذه وحول هذا الذي سيان سيدو صح جنايا وحول ماذا حويني نم أيا قبرتي سا ويلو أدريه كدريبي مركز gabadhina uma aqal geene wiilkii hooyada gabadhii hooyadeed bay la joogtay oo ninkaas odaga gurigiisii weli ku nooshaa gabadha dhalay marka gabadhiya waxay dirsaantii wiilashii saaxiibada la ahaayo iskoolka isla aadayeen ayay islaanta aragtay iyadoo la socota oo ninkeedina aan ahayn lagu nikaaxiyey ninka lagu nikaaxiyey xaafadda ma degana laakiin kuwa xaafadda jooga ayay la baxbaxday buu dhowr jeer oo shaleemay wada aadeen iyo islaantu marka dhaqanka Soomaalida dhaqan suuban waayo ma aqbali karto odaga ila hadasha habeenkii waxay tiri odayaho hebelow وعل أبكوي سنقنن أنا كان أبوتي سيقدرين أبكوي أبوتي ولا قانا وتقارو حيران أووي أي مركا سيدا كلا دي لوري قحوي وعل أبكوي سنقنن أووي سنقنن أنا كان أبوتي سيقدرين أي سيقدرين يودان قول كات كل كحس وجيتي وقلبي هذه معناها إشارة بحسن معايا لأن ممكن إلا صحتاوي قبل ممكن إلا صاحبتي وحول بدع كرا بريع على وش الأسبوع حكراوي عيب دعيس مركا نكيد وجي وحول مركب مدحوين على المهدي شرع قانون عن شرع إلهي أهين وافق سنين ووعلوي إيه وعل لك جديها النقنن أنا علومات كوا مستهنا قاعد يقولون ما بكوا مش دوني مركب واحد صار إذا شريعة وافق علومات يردن وكفر حين وركاس كل جين مدحوين هنا أدو سود دوي وحونا يري مركبة خلاص ورك الشيخ بكر لقى حاجة ما يوري waxaan ka codsanahay hawri culimada laba xubnood oo kamid ah oo labadan abukaat hadda kadib wax kasta ay soo saarayaan hubiye inay shariicada ay sakor iimaaneen inay magacoodin sheekh shariif Muxudiin iyo anigana la magacaabay dabcan sheekh shariif rajul qaanuni aniga iga aqoon badnay oo iga daaweynay nan shariicada ay qaanunka isla bartay baa ana hadan qaanunkii wax ka qorqoraya oo masterkii wax isku diyaarinaa laakiin eewnu shariicada wax nooga bilowraan laakiin qaanunka ma aqoonin laakiin sheekh labadu isla qiino jaamacadu ka dhigay qaanunka marka nimankii amar la siiyay madaxweyne amar uu siiyay waxa aan ka soo bixin culamadan isoo saar kartiin marka qisada marka muhiimadeedu waxa weeye sheekh Abubakar ninkaas oo ahaa nin matalkaas uu bixiyay weyn nin xaq ku adago oo aan gamban tilmaanta saddexaad taas ahayd tilmaanta afraad sheekh Abubakar israa'iiliha culamada dhexdooda ka jira ama dariiqaha la soo riixo ama culamada saxwada oo markii dambe maaragtay jaamacadaha ka soo baxday inta badan khaliijka iyo wax ku soo baratay iyo culimadii hore oo taqliidiga ahayd oo xirooyinka iyo jikooyinka culimadii jikooyinka la yiraahdo xogo yar oo soo tafaahum ka dhaxaano arrimahaasna uu ka sareeyay wuxuu dhihi jiray sheekh Saad saas oo ahay nusuusta sharciga ah iyo masaa'isha fiqiga ah hal isla aad u dhihi jiray yaan la isriixin yaan la iscadaawaysanin walidaalika masaajidkiisa niman jaamacadaha ka soo baxay oo sheekh Xuseen Jisliis kamid ahayo tujid akhri jiray rag badan ayaa wax ka akhri jiray علومته مارتي تجويد كي علوم كلاته مركز سوى حلو يجري شغبو كرو وهابيدي اخوانك هي مساج كاك سوقع مركز سوى يجري علمك يكتبتي اخريان ايا انا خصيصي شخصي جامعتك صبح انا ما خصي علمك اخنا انا قاعد جوجا وكنترولا ودغيستا wax oo diinta ka imaanaya kuma arkin marka insaas soo kalsoon oo ahay dadka dhan isku xira marka shabaab kale waxa la dhihi karaa wuxuu ahay imaam aimada islaamka kamida xilligiisa raxmatullaahi calayhi hogaamiye diineed hogaamiye bulsho dhaqan yaqaan dabeecad wanaagsan sakhay ah gacan furan xoolihiisa shaqaysta haddana ku bixiya islaamka dadkiisa xiriiriya gogol u ah maaragtay wanaaga intaas lagu soo karaa aad dabcan sheekh Abubakar suyaalkii sheekh Abubakar dabcan sheekh Abubakar macna waxa ku jirta inuu shakhsi isku tashto u ahaa shaqaysto saxiix inta badan marka laga hadlay dabcan dacwada marka la gudbinay iyo qofka inuu daaciga ahna inta badan waxa aad iyo aad u wanaagsan inuu yaani qof aan dadka waxba aan kaga rabin si fiican laakiin inta badan waxa dhacda in dadka badan oo inuu wax akhriyo ama mararka qaar inuu wadaadada lagu xanto in muxuu ahaa wacdi wadaad iyo marka dambe la yiraahdo wax siya u dambeysay waxba saasa lagu xantaa marka shaawo ka runtii dhankaas maadaama si nin saas u ahaa culamadii waagiisa joogtay xilligii isku xilli ahaayeen waxa ma ka xasuusan kartaa isku xilli ahaayeen sheekh Abubakar والله شيخ بكر هذا علمادي أجلده هيد بحلقي سيبا أي وضع نورايان بدت كرنتي آد عنك هو هاي شيء محل معنا حسنا كم هاي وحاكم هاي شريف شرف وسان شيخ شيخ سولي الشيخ محمد الشيخ عبد علي الشيخ شريف الشيخ محي الدين علي الشيخ حسن عد الشيخ حامد الشيخ أحمد زيار
sheekh Usmaan Xidig oo weli nool intaas hore dhan waa dhinteen raxmatullaahi calayhim sheekh Usmaan Xidig culimada kaleeto magaalada dhinac uga jirta waxaa ka mid ahay sheekh cali darwiish sheekh xuseen dheere sheekh cali suufi oo qiraa'aadka laga baranayay sheekh maxamed nuur qawi sheekh shariif cabdinuur iyo culimo kale culimadu aad u ballaarayeen marka culimadaasoo dhan ragga caasire bay ahaayeen intooda badan saaxiibbay ahaayeen inna waa laga yaabaa in korka uu ka maqli jiray shariif cabdinuur iyo kale aad uma huba inay aad isu yaqiineen laakiin sheekh cali suufi iyo laakiin waxaan hubaa culimadaas intooda badan sheekh Abubakar saaxiib oo la ahaa marka waxaa la yiraahdaa qarnigoodii oo qarnigii naga tagay 20aad waa qarniga culimadaba runtii Soomaaliya culimo aad u badan laga soo bilaabo sheekh Axmed Wacdiyo iyo sheekh Daawud Culusow iyo culimadii hore sheekh Xasan Barsane iyo sheekh cali Ismaaciil iyo oo qoyga markii la aado iyo sheekh Madar iyo sheekh culimadii manaadiqda sheekh Cabdullaahi maxaan ka iraa culimadii waaweynado sheekh Cabdullaahi Qutubi iyo sheekh Cabdi Cali iyo sheekh Muxdiin culimadii duruqda u badneed oo xilligaas dacwada iyo diinta hogaaminaysay sheekh Abubakar Macalin iyo sheekh Ibraahim Cali Gacal iyo sheekh Cali Maya iyo culimadaasoo dhan waa culimadii ayaga ka horeysay wax ka barteen ayaguna jiilka tirnayay bay jiilka labaad bay ahaayeen jiilka saddexaadna waa dadkan yararka hadda jiro anagu aan lamin oo 60 jirada iyo 70 jirada 50 jirada u dhaxay marka jiilka la isdaba socdaa laakiin jiilka asaga uu joogay jiilka ugu badan ay ahaayeen jiilka horeeyay hadda aan sheegay ugu dambeyntii Sheekh Cali waxaa jira culimadii aad nooga sheekaysay Sheekh Abubakar Macalin uu ku jiray dabcan waxay ahaayeen dacwada iyo islaamku u adeegay ahaayeen saxiix halka laga yaabo culimada maanta joogto xoogaa yar isriix iyo hadda maanta waxaan arkaynaa in muxuu ahaa dunyadii teknolojiyadii aad u horumartay oo hadda muxuu ahaa mararka qaar culimadii hataa qofkii rabo inuu wax u sheego kale in facebookii la isku adeegsanayeen oo la iskala hadlaayo arrintaasoo dadkii abuuri karta in ummadii kala tagto muxuu ahaa abuuri karta halka culimadii horena aad nooga sheekaysay ay ahaayeen marka arrintaas ayada ah sidee lagu gudbi karaa maxaa tala iyo waana u soo jeedinaysaa waa mahadsantahay maxamed horta arrinta oo ugu weyn waxaa waaye kullama xadaarada iyo aqoontu ay kororto iskhilaafkuna waa badanayaa waana sunnatul kown kullama dadku ay aruursan yihiin oo dhaqaaq yani ixtikaaka ama xiriirka dibadda ay leeyihiin oo aad u yaryahana soo dhawaashada waa badan tahay waa normal marka kontonka sano lasoo dhaafay saxwada islaamka ayaa timid dad badanaa dibadaha aaday jaamacad kala duwan laga soo baxay Azhar Sharif Sacuudi Carabiya Algeria ilaa tan iyo Morocco Maghrib maxaan ku iraadaa Pakistan Malaysia meelo badanaa jaamacada laga soo wada qaatay marka thaqaafaadkaas kala duwan waxay keenayaan in aragtiyooyin kala duwan ay timaado culimadii hore laftooda duruq ay ahaayeen dariiqooyinka laftooda xoogoo yaroo shacaaraadka iyo awraadda iyo ijaasada iyo calanka iyo waxay u kala duwanaayeen oo mararka qaarkood xataa isla dhici jireen xilliga Talyaaniga uu joogay marka horta isqabqabsigaas riixa ah oo inta badan suldadu waa dhib badan tahay culimada laftooda sulda ay haystaan oo suldadii baa isku taabanaya haddana jamaacad islaamiya soo baxay laftooda oo xarakaadka islaamiga nooc siraaca ka dhaxayn jiray horta alxamdulillah hadda waa xilligan waa la roon yahay marka laga reebo kooxda argagixisada oo dadka leynayso iyagu ku taraadka fahamka diinka si qaldan u fahmay iyo kuwa takfiir oo aamusan laakiin iyaguna dadka gaalaysiinayo balaayo qabayaal marka laga tago culimada guud ee ama duruq suufiya ama xarakaadka islaamiga markay ugu deganaayeen ay isqaadan kareen waa xilligan macquul waaye sidaa daraaddeed waa iska dhacaysaa waxaa keenaya yani dibadda jaamacad kala duwan iyo afkaarta kala duwaneed iyo xadaaraadka la soo arkay baa keenaya laakiin guud ahaan waxa la isku raacsan yahay waa dhowr qodob waxay dadku isku raacsan yihiin horta islaamka 95% waa la isku raacsan yahay waa la isku waafaqsan yahay arkaan islaam la isku khilaafsan iyo arkaan iimaan iyo wixii lamid ah in wax la isku raacsan laga tacaawuno wasaasha la isku khilaafsan yahayna hoos looga wada hadlo oo xiwaar laga sameeyo nin shaacir ahayo gabiya ayaa hadda kor wuxuu yidhi saddex walcatoo min ku taal youtube-ka hadda ka horaan South Africa muxaadaran ka jeedinayay baan kusoo daray oo kusii celinaya saddex walcatoo min ku taal saddex walcatoo min ku taal saddexaa loogu miiriyaa oy waxaa ugu horeysa marka muddo iyo muddo caley
maragtaa loogu meeriyaa uu yidhi laba qofood hadday is haysato muddaci muddo caley markhaatiga uma kala saari karo macallimeyn hadday murmaana minhaajka loogu meeriyaa uu yidhi haddii culummo isqabsatana kutubta in laysla noqdaa waajiba ilahina qur-aanka waa ku sheegaa wuxuu leeyahay fain tanaasactum fi shayin farudduu ila allahi warasuul in wax layska sheego oo leys durduro oo leys caayo facebook sida u sheegtay wax laysku dira waxaa ka fiican in xiwaar laga sameeyo iyo dood cilmiyaad diinta laga wada hadlo mid saddexaadna wuxuu yidhi maraydi kaa masayrtana maharkaa loogu meeriyaa wy macnaha haween hadday kugu masayrtana haddaa hadde intaa isku dimaabi leedeen haddaad tiraa walaalay maharkaaga meeqo ahay waa isku dimowne ambal kala nasanne xooga waa qabobaysaa shaydaanku waa ka yaraana haweenka wax soo sheegayana war odayga inuu furuu rabaa ordayga tagay gurigayga duminaya marka xooga caqligaa soo noqonayo laakiin furiinka in ugu degdega ma aha anigu furiinka ma qabo in ugu degdego furiinku mar walba guriga inuu dhisnaada khayr badan marka cumuuman waa arrintaas way jirtaa isqabqabsigaas waana badan yahay laakiin alxamdulilah hadda anaga hay-adaha culummada waxaa lagu aruuriyey madallada waaweyn madallada hadda culumada duruq suufiya oo kaleeto golaha guud ee culummada soomaaliyeed ayay leeyihiin oo runtii sheekh maxamed cabdilbaari iyo sheekh ismaan xidig iyo sheekh soomow iyo culummo waaweyn maaragtay ay hor socdaan oo ixtiraam badan leh xarakaadka islaamiga laftooda hay-adda culummada soomaaliyeed ku aruursan yihiin culummada mustaqiliinta oo xarakaadka iyo culummada duruqda iyo culummo kaloo fuqahaana waxay ku aruursan yihiin majmac culummada soomaaliyeed marka haddii saddexdaas la isku daro hadda culummadii matalaad weyn ayay u samayn karaan ilaa xad hadda waa la isu dhow yahay golo guud oo ama hay-ad guud oo intaasoo dhan ka koobanna oo guddi saraana waa noo dhisan yihiin oo hadda noo jira oo sheekh maxamed cabdilbaari iyo sheekh shariif sheekh bashiri madax sare ka yihiin iyo sheekh yuusuf calaacinte marka hadda waa la isu dhow yahay alxamdulilah mana si sheekh abubakar hadda waa shaqaynaya sheekh abubakar dadka in la isku wado aad uga shaqayn jiray maanta hadduu noolaan lahayn runtii ramsi oo ka noqon lahay hawshaas hor kici lahay wuxuu jeclaa jiray waxaan xasuustaa markii iigu dambaysan arkayo qabla mawtii sacuudi carabiya ayuu joogay xaafadda la yidhahdo maarata madaa'in faad quleyl ayuu deganaa markaasa subax kasoo ziyaartay waxaan u tegay asagoo kitaabkan kitaabu tawxiidka la yidhahdo akhrisanayo oo hadda culamo badan ay ka qayliyaan sheekh maxamed cabdiwahaab qoray markaasa waxaa yidhi sheekh abubakar maanta kutubtii wahaabiyada kitaabka ugu weynaa akhrisanaysaan markaasuu yidhi aayadahan iyo axaadiistan akhristo waayaa anu hadda niyadeyda wahaabiyo kutubtada ma niyeysan oo yidhi in akhriyo laakiin meeshaan khayr fiican oo aayada iyo axaadiis loo fiicanaan ku arkay buu yidhi marka in wax laysaga sheega waxaa ka fiican kutubta in la akhristo marka yani waxay tusinaysaa bisal iyo inuu ahay qof u furan oo aan dacaayadaha iyo yani maarata fariimaha la isu diro salbiga aan shaqa ku lahayn oo wax walba aqoontiisu maadaama aad u durugsanay diinta wax walba inuu dul istaago jeclaa kalsooni badan isku qabay raxmatullahi caleyh jazaaka allah khayr kaasi wuxuu ahaa shacli wajiis oo ka mid ah culamaa diinka soomaaliyeed oo marti igu ah barnaamijka sooyaalka culimada aad baan kaga mahad celinaa sida qiimaha leh ee sheekha runtii inoogu faahfaahiyey sooyaalkii sheekh abubakar macalin runtii aad baan ugu mahadinaynaa ummadda soomaaliyeedna daawadayaashan waan rajaynayna wax badan ka faa'idaysteen intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa idiin soo jeedin halkan idinkala socodsiin anigoo ah walaalkiin cali maxamed jeelle intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu